waa qaybtii saddexaad sheekadii mataan ciideed. dhegaystayaal, mataan ciideed iyo ninkii reer saaxil ee uu safarkiisa dhacay inta aanan sheekadooda idiin soo gudbin, bal horta aan sii faahfaahiyo xeerkii ay soomaalidii hore maganta ka lahayd ee ay sida weyn u ilaalin jirtay. ruuxa maganta noqdaay waa ruux ku sugan dhul aan cidahoodu degganayn, cudud iyo ciidan uu u qayshado dhul aanu ku lahayn, taasoo sababa dhowra ku imaan karta. ama waa safaroo alaab ganaca ayuu wataa, ama waa mindhisma oo reeraha uu markaa dhex joogo ayuu ka qabaayo xidid leeyahay, ama waa marti reerka habeenkaa ku hoyday waa berigana ka kallihi doona, ama wuxuuba ka baxsanayaa col daba jooga oo dhiiggiisu uu u hilaacayo. si kastaba ha ahaatee, wuxuu xeerku ahaa ninka magantiisa la yahay in agtiisa lagu badbaado oo marka hore isaga qudhiisa laga nabad galo, marka labaadna uu ka dhiciyo kolba ciddii inay waxyeelayso u soo tafaxaydata. barnaamijkii kan ka horreeyey sidii aan ku soo xusayna, ninkaas la soo magan galay waxay maradu ka dhacdaa gabdhihiisuna ku guumaysoobaan magantiisa ruux ah marka la dilo ama safarkiisa la dhaco, ama siday ahaataba waxyeelo la gaarsiiyo, dabadeedna uu ka gelgelan waayo, geelina uu ka xigi waayo. keligiisna kuma ekaan jirine ceebtu waxay u gudbi jirtay kolba qolada ama jilibka uu ninkaasi u dhashay, waxaana la odhan jiray reer hebel magantooda ma bixiyaan ama waa laga qaadaa. waxaaba jirta oraah markii dambe mahmaah noqotay oo tolalka soomaalida midkood ay kuwa la dariska ahi ku xifaalayn jireen. waxay odhan jireen marti reer hebel iyo mooye jeelaalba miday xun bay dhawaaqaan, iyada oo reer hebelkaas lagu ceebaynayo inay yihiin duul aan martidooda badbaadine habeenbarkii iyaga oo hurdaqar ku jira warmaha dara. aan kolka tusaale gaaban idinka siiyo soomaalida inteedii badnaydii siday xeerkaas u maamuusi jirtay ee aanay ugu dulqaadan jirin waxyeelaynta maganta. idiinna mariyo sheeko arrintaas waxaynaga baraysa. isla xilligaas aynu hadal hayno ee mataan ciideed noolaa ayaa nin lagu magacaabi jiray xuseen xasan samatar oo lagu naanaysi jiray xuseen qoordheer waxaa si ka ma'a waran kaga fakaday jaamac dalmar nin isagana la odhan jiray. ninkaas dambe oo reer nugaaleed ahaa ayaa wuxuu safar la soo aaday dhudub oo ka tirsan ceelasha saddexda ah ee ceel cad loogu wada yeero, halkaasoo ahayd gadaalkii halkii uu malagiisu ku galay. ninkaa la dilay waa jaamac dalmare. waxay walaala ahaayeen gabyaagii dagaalyahanka ahaa, ceesha ximanoodna kol magaciisa lagaga haasaaway. waa faarax xasan cali oo malahayga dadka suugaanta daneeya ay faarax afcad ku garan og yihiin. jaamac oo gacanta xuseen qoordheer ku baxay wuxuu ka mid ahaa nimo reer nugaaleed ah oo ay afcad xagga hooyo walaala ka ahaayeen, si aanay degmo wadaagin isna aqoon. inuu faarax aarsadaa waa qodob isna ka mida qodobadii waaweynaa ee xeerkeennii hore uu oggolaa. dalka ayaa kala fogaaye faarax uma suuro gelin inuu walaalkii u aaro, lagaba yaabee walaalihiisa kale ee nugaal ku dhaqan inuu hawshaas kaga hurday. si kastaba ha ahaatee, xuseen qoordheer isaga oo aan war u haynin ninkii gacantiisa ku baxay inuu ximan walaalo ku leeyahay ayuu goodobay waabale aalcad iyo mudug ka soo fogaaday. niman aanay afcad tolnimo iyo bahnimo ku kala durugsanayn ayuu la xidhiiday, inanna ka dhistay. mindhismo ama inanlayaal ayuu degmada dhexdeedii ku noqday. wuxuu is yidhi alla ilaahay nugaal ka soo durugtay oo ninkii aad qabtay raggii aarkiisa lahaa kuma soo gaari karaane ximan iska ooloo reerkaaga cusub ku dhaqo. magan baa magac ugu yeeray. guul iyo guul darrana wuxuu ula sinaa raggaa uu la xidhiiday ee uu guryahooda guurka ka alkumay. maalintii dambe isaga oo wada dhalaalaya dhowaanna arooskii ka soo baxay ayuu xuseen wax ka soo fadhiistay geed nin tumaalihi uu bir ku tumaayo, gudin iyo warmo iyo amley iyo wixii lamid ah. afcad oo isagana meeshaa waran loogu dayleynayo ayaa ku baraarugay saantii xuseen iyo jaanqaadkiisii. kolkaas buu haddiiba intuu warankii qaabsaday xaggiisii ula jeestay, isaga oo ay ka go'an tahay dhiiggii walaalkiis inuu dhiig raaciyo. waxay rumaysnaayeen ninka haddii la dilo inaanu xabaasha ku xasilayn oo dhinaciisu aanu dhulka qabanayn inta kii dilay uu arlada dusheeda ku nool yahay, iskana taxtaxaashayo. ilmilicsi wax aan dhammayn ayaa afcad wahan ku beermay. dhabna wuu isula hadlay.
wuu farxay oo wuxuu is yidhi alla ilaahay ninkii walaalkaa jaamac dalmar qabay maanta ayaad haysaa. dhanka kalena wuu naxayoo waxaa ceeb la noqotay in adeerkiis nin magan u ah sida uu u dili karo oo uu uga aarsan karo. hadduu dilo dhibaata ka soo gaari mayso oo deera u hirdiyi mayso, waase maganoo in reeraha lagu dhex dilo ceeb ka weyni ma jirto. nin kula siman oo aad isu rag iyo qalab urursateen ayaa lala diriraaye nin keligii ah oo adiga iyo guryihiinna loo tirinayo welibana mindhismo ku ah sow in loo gacan qaadaa foolxumo maaha. ba'e ma ina adeertaabaad asay u saari. afcad baa sidaa ku hamiyey isaga oo ay talo ka wasiixsan tahay. ugu dambaystiina wuxuu naftiisa hoos ula tashadaba, wuxuu arrinta rogrogaba tana waxay kaga idlaatay inuusan xuseen qoordheer dilin. markaas buu warankii inta gacanta midig ka wareejiyey oo bidixda ku qabsaday dhulka qotomiye. dabadeedna wuxuu isla goobtii ka tiriyey gabay aan madahaygana soo wada gaarin, asii meerisyada laga hayaa ay wax badan inooga sheegayaan soomaalidii hore sidii ay u dhowri jirtay hiddaheedii maganta ku saabsanaa. wuxuu yidhi afcad, waataad jafkii dhudub dhigteen johoradaydii iyo anoo jooga baad hooyaday jabay ka siiseene nin walaalkii haad loo jarjaray looma jiibsado waxaad jiica faragoo u timid hoy waxbaa jira. jirid weynahaygaas haddaan jidiyo ruuxaaga jeeskayga oo meel fadhiya lama jiteeyeene geelayga jaawiya idiin jiid ma bixiyeene ninna ima tutuubeen haddaan ruuxa kaa jaro. inta kale jarkood waa tahay iyo jaranqahoodiiye waxsaan kaa jeclaa dhoorrihii jinaha dhuubnaaye waxaan kaaga joogsadayse waa magan jalleeceede iga jaho xuseenow nin soo jiitay baa tahay. waa tahay qiyaasta 1880 goor aan ku wadno ayaa magaalada berbera waxaa awr safar ah waa kabare ka soo kaxaystay nin la oran jiray Wacays Xirsi oo gabyaana ahaa. dhaqankii safraha iyo maganta waa tii aan soo faahfaahiyey. Wacays oo safarkiisa ciid ula socday waxaa la gudbooneyd nin uu magaciisa geyiga ku maro inuu soo sheegto. waxa uu soo sheegtay nin xoog iyo ragba eebba ku galladaystay oo u dhashay jifadii talada ciideed maantaa looga dambeeyey. si uu uga badbaado col iyo qowlo wixii laga yaabo inay wadooyinka ka helaan ayuu soo sheegtay Xasan Maxamed oo Xirsi Jabana ku magac dheeraa ahaana mataan ciideed nin aanay abtirsiile ku kala fogeyn, inkastoo markii hoos loo daadego ay laba lafood kala ahaayeen. waa ilma adeer xurmo iyo ehelnimo kala mudan. mataan baase wuxuu ahaa nin aan cidnaba raganimo la qaybsan karin, nin siday ku tilmaami jireen gardarrada sokeeyaha malab loogu daadshay. safarkii Wacays oo reerihii dhex maraaya ayuu mataansheedda ka arkay. shaydaankii gardarrooyinka u kala doori jiray ayaa malaha halhaleel ula soo joogsaday. awrtii ayuu milicsaday, markaabuu muusooday, suu waa ku dhaqaaqay, wuu joojiyey oo haybsaday. Wacays oo aan wax dhiila aqabin oo isleh aqalada Xirsi Jabana ayaad bari barqadii ku furi ayuu waraystay. isaga oo isku kalsoon ayuu u deexday. wuxuu ugu warramay safarkaygu Xirsi Jabana ayuu ku socdaayo isaga ayaan magan u ahay. waxaa ka dhaadhacsanayd kor hadduu ninkaa magan u yahay mataanna inuu u yahay wuuna ku hagaagsanaa, waase haddii xeerarkii jiray la wada raacayo. arrintuu nin ay xeerarku qabtaan ma joogin. qosol jees ka keenay ayuu mataan kolba dhinac ula jeestay. keligiis buu isla hadlayaa, hoos buu u gunuunacayaa, dhegta ayaa loo raariciyey. mase wuxuu leeyahay ciidey laguma dego haddiiba maanta la qabo ninaan aniga ahayn inuu cid ku magangelin karo. markaasbuu inta Wacays dhoolay ku yidhi, waryaa beenta kuu sheegay oo ku marin habaabiyey. yaa kugu yidhi geyiga ceedeed baa nin aan mataan ahayn laga magan galaa? Wacays baa amankaagay. Wacays baa wuxuu ku jawaabo laga madoobeeyey. markaas buu mataana si degdeg ah awrtii iyo moodkii saaraaba afka ugu dhigtay, xoolihiisiina ugu darsaday. Wacays oo leegleegsanaya ayaa goobtii ka adaafay. oo maxaa kaloo u bannaan ayaan buuba leeyahay haddii uu gacantii mataan ka baxsadaye maxaa uga eg Xirsi iyo qoyskii uu maganta u ahaa inuu isaga daraabo. sidaas ayuu yeelay. maxaa xigi doona?